waxaan la daalaadhacay quudinta qoyskayga halka xaaskaygana ay ahayd mid kalaabyada aada iskana baashaasha. Rihanna waxaan isguursanay muddo haatan laga joogo 5 sano. waxayna ii dhashay gabar 2 sano jir ah oo lagu magacaabo Simi. laakiin wax walba waxaan ogaaday kadib guurkeynii. waxay ahayd mid igu qiyaanaysa nin kaleeto, waxayna lacagta aan soo shaqeeyay ay ku aadi jireen kalaabyada iyo meel kasta oo asaga danaynayo. waxay iska indhetiri jirtay mas'uuliyaddeeda ku aadan dhanka qoyska, xataa waxa ay hilmaamtay in ay gabar leedahay. aniga keligay ayaa ka taxadiri jiray gabadha aan dhalnay. waxaan bilaabay inaan shaqeeyo shaqooyin dheeri ah si aan ugu kireeyo gabadheeda qof ii haaya intii ay hooyadeed maqan tahay. Rihanna ilaa yaraanteedii ayaan jeclaa, waxaana ku riyoon jiray markasta inay nolosheeda ka mid noqoto. laakiin riyadeedii waxa ay ku dhacday ceel mugdi ah. Rihanna markii aan isguursanay kadib waxa ay noqotay qof dagaal badan, qaylo badan, dhab ahaantii anigana waa ka baqi jiray ayada. xataa uma dulqaadan karin gabadheeda yarta ah ee ayada dhashay. waxaan qalbiga ku qabowsan jiray in maalin maalmaha ka mid ah Rihanna ay fahmi doonto qaladkeeda ama ay joojin doonto qaladka aniga iyo gabadheeda ay nagu wado. anigu waxaan xoogga saarayay gabadheena mustaqbalkeeda, halka ayada ay xoogga saaraysay baashaalkeeda iyo inay qarash garayso lacagta aan aniga soo shaqeeyo. gabadheedana waxa ay la daalaadhicaysay inay hesho qof jecel ay weheshato inta aan shaqada ku maqanahay. wuxuu waqtiga isguro maalin maalmaha ka mid ah ayaan u baxay shaqo ganacsi, waxaana soo guriya noqonayay subaxa xiga. Rihanna waxaan u soo helay shaqo maalin ah si habeenkii ay waqti ula qaadato gabadheena una xanaanayso. laakiin subaxii xiga markaan soo laabtay waxaan guriga ku arkay wax aad iiga nixiyay. waxaan u imaaday gabadhii aan dhalnay oo kaligeed guriga dhex fadhisa, albaabada guriga oo ballaqan, gabadha oo qabow dartiis dibnaha ka jaraynaysa, ayada oo xanaaqsan oo hinteena ay ka dhamaatay. dhab ahaantii maalintaas aad ayaan u xanaaqay. waxaan ku qayliyay magaceeda Rihanna anigoo guriga ka baaraya, laakiin qof ii jawaabta ma aysan jirin sababtoo ah Rihanna waa ay maqneed. waxayna imaatay fiidkii ayadoo iska laafyoonaysa. waan u adkaysan waayay dhaqanka Rihanna, waxayna ahayd maalintii isugu kaaya dambaysay, waxaana dhex maray dagaal aad u weyn. ugu dambeyntii waxaan aruursaday boorsadii dharka gabadheediina hore ayaan u watay. laakiin waxaan ku fakarayay in Rihanna qaladkeeda ay fahmi doonto, dibna ay noogu soo laaban doonto, ayna raaligelay doonto. laakiin Rihanna dib nooguma soo laabanin. aniga keligay ayaa gabadheeda korsanayay, waxaana moodaa nolosha inay noo fududaatay Rihanna la'aanteeda. mararka qaar jacaylku waa mid ku indhatiraya. jacaylka aan Rihanna u qabay waxa uu galaafan rabay gabadheena. Simi hadda waa 6 sano jir. dhab ahaantii waa gabar aad u wanaagsan. mararka qaar waxa ay wax iga weydiisaa arrimaha hooyadeed, laakiin aniga waxaan ku iraahdaa hooyada ma noola oo waan ka qariyaa wax walba oo ku saabsan hooyadeed. Simi marka ay weynaato ayaan wax walba oo runta u sheegi doonaa, laakiin inta ka horeysa waa ay yar tahay, umana sheegi doona wax xun oo hooyadeed ku saabsan. waxaan rajaynayaa inay gabadheeda i cafi doonto ee ay jeclaa doonto markay runta ogaato hooyadeed ku saabsan.